Si lamida suuqyada weli waa sidooda. Dadka ayaad moodaa inaysan dhag jalaq u siinaynin halista caafimaad ee laga digayo, mana jiro ololo wacyigelin oo xoog leh oo magaaladan laga dareemayo marka laga reebo wasaaradda caafimaadka oo si maalinle ah xogta kiiska dadka warbaahinta kala wadaagta. Fayraska corona oo marka la soo laba kacleeyay ayaa ku faafaya Soomaaliya. Soomaaliya se waxay xilligan wajahaysaa mowjadii labaad ee COVID-19 iyadoo aysan weli wax tallaabo ah u qaadin dowladda. Iyadoo dalka dibaddiisa inta badan laga keeno afxirashada hal mar kaliya la isticmaalo ayaa waxaa durbaba isku howlay in ay bulshada ka saacidaan samaynta afxirasho qofka mar waliba uu u isticmaali karo waliba u dhaqan karo. Shirkadda daabacaadda ee Supersign oo ka mid ah shirkadaha daabacaadda dalka gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ayaa bilowday qorshe bulshada lagaga badbaadinayo halista COVID-19. Hadayalsan coronavirus. Halista COVID-19 waa habka qura gacmo dhaqashada iyo afxirka looga badbaadi karo. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.